dib uga dhacay takhallufkii iyo dib u dhici iyo aqoon yaridii muslimiinta soo baxday waxa kale oo soo baxay baa la yidhaahdaa wakhtigaasi caalamul islaami baa dhammaantii wuxuu galay taxta xarakati alhaymana walistikbaari walisticbaad caalamul islaami baa dhammaantii wuxuu ku dhacay gacanta gumaysiga wuxuu noqday dunidii muslimiinta ahayd duni la gumaysto oo ay gumaysanayaan duwalka reer galbeed min bari ilaa galbeed qodob saddexaad baa soo baxay baa la yidhaahdaa oo ah tamziiq alcaalam alislaamiya ilaa waxdaatin sagiira cantonis khilaafadii iyo dowladdii weyneyd ee muslimiinta ahayd inta la googooyey baa qurubyo yaryar laga dhigay oo xeryo yaryar oo dowlado yaryar ah yacni meeshan waxaa dhashay baynu leenahay wakhtigaa dabadeed saddex shay ayaa dunida muslimka guud ahaan iyo caalamka saddexaad la yidhaahdaba isku soo wada dar waxaa ku soo baxay kow inuu muuqday reer galbeedku inay ka technology sarreeyaan ee iyaguna mutakhalifiin yihiin waxaa kaloo muuqday isticmaar in la gumaystay oo la qaybqaybiyey oo in yariba qolo gacanta u gashay waxaa kaloo muuqday in la qaybqaybiyey oo aan la ogolaanin xataa waddankii isku af aha ama isku luqad aha ama isku dad ahaa inuu israaco ee la qaybqaybsadoo la kala googooyey saddexdan shay aan tilmaamaynaa ma isticmaarkaa takhallufka dhalay ma takhallufkaa isticmaarka dhalay waa masaa'il ay isweydiiyaan culamaa ilijtimaac laakiin waa xanuunada midba mid sababo yacni matalan qofka caadiga ah qofka faqiirka ahi hadduu xanuunsado waxaa laga yaabaa xanuunkiisa waxyaabihii kalifay inay ka mid ahayd faqrigiisa oo malnutrition ku dhacay cunno xumo ku dhacday kan ku dhacday laakiin markuu haddana xanuunsado xanuunku faqri buu sii kordhiyaa oo shaqadii buu gabaa oo dawo iyo kharash kalaa ku soo kordha idan waa laba xanuun oo isdhalaya midba ka kalu dhalaya dadka lama gumaysto haddaanay qaabil lilisticmaar ahayn dad u cuntama in la gumaysto haddaan ahayn lama gumaysan karo idan waa mutakhalifiin isticmaarkuna takhalluf buu dhalaa oo dadka inuu ku hayo gumaysiga ayuu ku dadaalaa dib uu sii ridaa waxaana aan ka hadlayaa weli waa muqadamo mawduucan u socdaya maxaa ka dhashay markay saddexdan arrimood soo baxeen dib u dhac gumaysi iyo iyadoo dadkii la kala googooyay waxaa ka dhashay saddex qadiyadood saddexda arrin ee soo socda aan sheegi doono waxaa wadaagayay qof kasta oo isku dayay inuu daawo u baadi doono xanuunadaas saddexdaa arrin waxay noqdeen nahda ama taqadum horumar oo ka soo hor jeeda maxay takhallufka iyo dib u dhici ummadda aan horumarinno qodobka labaad wuxuu noqday gobonnimo doon ama xorriyad ama dadku inay xoroobaan ama istiqlaal helaan ama qadaayaadkooda iyaga gacantooda ay gasho qodobka saddexaad wuxuu noqday midnimo iyo dadkii la kala googooyey inay is urursadaan caalamul islaamiga guud inuu ku dhawaaqo الجامعة الإسلامية أو المؤتمر الإسلامي أو القابون ومدوبة إنه الرادعية قبل الذي هو سكال قوقو أي قابون إنه يمدوبة إنه الرادعية إذن تاريخ دا الدنيا دا صدحات أو دا مسدح دا شايبا يسكر رعاضة إنه قبل نمي حرية هلان إيوه إن هرمر لهلو إيه إن مدنمال لهلو mucaalijiinta dadka wax daweynaya waxay ahaayeen dadyow aragtiyo siyaasi oo kala gedisan leh
مثال waxa ka mid ahaa qowmiyiin nationalist dad la yidhaahdo qowmiyiintaasi cid waliba waxay u doonaysay xorriyad qowmiyadooda مثلا Soomaali haddaan dib u eego waxa ka mid ahaa qowmiyiintii Soomaaliyeed dadkii gobonimada Soomaaliyeed dhaliyay culimo leh odayaal leh salaadiin leh dad intellectualist aqoon-yahan leh dhalinyaro leh waxaasoo dhami waxay raadacaynayeen waxay ku tilmaamaan xorriyad gobonimo qowmiyiinta Soomaaliyeed waxay kaloo raadacaynayeen horumar waxa bilaabmay waxbarasho schooling system dadka in wax loo dhigo horumarin la sameeyo nooc min horumar ka mid ay bilaabeen waxa kaloo bilaabmay qowmiyiinta Soomaaliyeed ku dhawaaqayeen wixii loo yaqaanay midnimo مثلا marka Soomaali laga warramo waxay lahaayeen shanta Soomaaliyeed calankan buluuga ah ee xidigta shantii ku sawirantay fikradda ka dambeysay waxay ahayd in Soomaali shan ah oo isticmaar kala nooci uu gumaysanaya in la mideeyo qowmiyiintaasi nawcan ma wax waa xaqiijiyeen gobollada badh waa xoreeyeen horumar wax waa ka sameeyeen midnimo wax waa ka sameeyeen waxbay xaqiijiyeen meel soo gaadhsiiyeen caalam islaamiga guud markaynu eegno atiyaafta siyaasiga kale taagnayd waxa ka mid ah yasaariyiin leftist shuuciyiin مثلا Soomaalida wuxuu ka soo gaadhay maxay thawradii ama kacaankii Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre dawladdu hogaaminayay scientific socialism bay iclaansadeen iyana intanoo kale ay la dhawaaqayeen gobonimo xorriyad horumar iyo midnimo Soomaali in la mideeyo dagaalay u galeen iyagoo fikraddaasi xambaarsan iyana nawcan ma waxbay sameeyeen أطيافتا يناتشوكتي كعالم الإسلامي يعني الصومالي تصالان دي كسو قبانيا لكن قضية نوا قضية عالمية مركا كان دون دي صدحات أردن أما عالم الإسلامي أردن أي حرنا ودون كان كوضا بلا ما يصدح دان شايون كرد واقعية إيقو دادك ودا قاري قوميين إيقو دادك ودا قاريين محي شيوعيين يوم مذهب كاسيا يستان مثل جمال عبد الناصر سوريا وحاس أردن بعثيين تي عراق وحردمي صدح دان شايبه كرد واقعيين وحكم ده إسلاميين oo yana ku dhawaaqayay ka qayb galay gobonnimo doonnimadii Soomaaliyeed iyo tii caalamul islaami ka dhacday oo dhan oo jihaadiyadii iyo dagaaladii isticmaalka lagaga hortagay inta ugu badan markay dagaalada tay inta ugu badan culimo waday haday Soomaali tahay iyo haday caalamul islaamiga kala tahayba iyana raadinayay xornimo horumar iyo midnimo alwahda ولا غيابا أطيافة السياسية مركان كور إنه إرياضة تنفسر كودا مفهوم كلا جديسانين وكذا بعيه مثلا إنك إسلامي جمرك حرية كور رميه حرية دي سواها وقوه الرئيس محي تير ربعي بن عامر وتلمامي يدتك أنا نكحر إنه من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده أول الحرية إن هذه عبادة waxay atiyaaftaasi siyaasigii ku kala gadisnaayeen mas'alada
sida erayadan loo sharxayo mooyaane saddexdan eray dhammaantood way wada qabeen marka aan arrimahan tilmaamayo waxaan leenahay dad badan oo qadiyaadkan u kacay